mawduuceenna aan idiin soo gudbinayno walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay suurad yar oo gaaban. haddii aad akhrisid 7 jeer biyo dushood oo biyo aad ku tuftid markastoo aad akhrisidba 7 ka mid ah, kadibna aad ku qubaysatid, biidnillaah rabbulcaalamiin wuu kaa caafimaadinayaa jirka xanuunka aad ka dareemaysid ee malahaadu u badan yahay inuu yahay sixir. idaylkan waa ognahay walaalayaal kalaamka rabbigeen inuu yahay dhammaantiis caafimaad, lidaalika ilaahay ku tilmaamay inuu yahay shifaa. ogaada hadda walaalayaal, ilaahay muuse oran dawaa wey. qur-aanku waa daawo, rabbi muuse oran ee wuxuu yidhi waa shifaa. waayo daawada in lagu caafimaado iyo inaan lagu caafimaadin ayaa u dhaxaysaa. imisa kaniini cuntay xanuun aad qabtayna lagugu qoray ilaahay haddana aada ka caafimaadin ama aada ka caafimaadin waqtigaad cunaysay. laakiin shifaa waa caafimaad la hubo weeye oo ka takhallusaya xanuun kastaba. waxyiga rabbigan haddaan raacno wuxuu noo sharciyay in aynu dabagalno wax badanoo maantana haysta waa ka caafimaadi lahayn. sirta layaabka leh ee qur-aanka kan ku dhex jirta waxaa ka mid ah inuu caafimaad u yahay xanuun walba oo ku tacalluqa xagga nafta. suuradaha xoogga badan ee kitaabka ilaahay ku jirta arrimahaasna ka hortagta oo baabi'isa waa suuratulfalaq. qul acuudu birabbiilfalaq. ilaahay idinkiis xanuunno kala duwan oo ruuxaani ah ayaa ilaahay ku caafimaadiyey suuraddan sababteeda. marka qof walba waxaynu u sheegaynaa inuu suuraddan laasimo. xanuunka haya ha ahaado mid ileed oo la cayuumay ama sixir ama jin ama wax kale ay taabteenba oo xasadku ka mid yahay, suuraddaani ha laasimo qofkaas. sidaad u laasimaysidna suuraddan waxa weeye 7 jeer baa waxaad ku akhrinaysaa biyo baraf ah, yacni biyo qabow, kadib aad cabbaysaa oo ku qubaysanaysaa. haddii aad dareemayso waxa ku haya inuu yahay jin ku taabtay, aroortii horead ku qubaysanaysaa. haddii kale aad is leedahay waa il ama waa xasad waxa ku haya, intaada seexan hameenkii ku qubaysa biyaha qabow oo suuratulfalaq ku akhrisay 7 jeer. qaabka kan faa'iidooyin waaweyn ayaa ilaahay dad badan ku siiyey, xanuunadaasoo ah kuwa nafsaani ah. ilaahay suuraddan sabab wuxuu uga dhigay inay xanuunadaasi meesha ka baxaan ama kulaylkoodii uu hoos u dhaco. niyada soo xaadiri, aaminna caafimaadka gacanta ee baynu ku jiro. alla raxmaana oo raxiima oo wax walba awooda, adduunya iyo aakhira iska leh ayaad la macaamulaysaaya ogow. oo waxaana dhammaada aan aqoon kalaamkiisii baad isku akhrinaysaaya ogow. aamin wax walba gacanta ilaahay bay ku jiraan, wax ku anfacaya iyo wax ku dhibayaba. ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaan inuu caafimaadiyo inta xanuunsan, inta caafimaadka qaban uu siyaadiyo. casharkani la wadaaga asxaabteenna. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.